السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan muuqaal kale iyo cashar kale. Sidaad ciwaanka sare ee fiidiyowga aad ku soo aragtay ama muuqaalka waxaanu baranaynaa farsamadaas inuu computerkeena haddii uu gaabinayo aynu kaga dhigayno mid dheereeya inagoo kordhinayna xawaaraha shaqo qabashadiisa. Sidaan wada ogsoonahay computeradu waxay kala leeyihiin nashqado kala duwan, magacyo kala duwan, iyagoo ay soo saaraan shirkado kala duwan. Laakiin waxa muhiimadda ayaa waxay tahay habsami socodka computerkana aad uga qayb qaata waa faylasha computerka gudihiisa ugu jira oo isugu jira kuwa computerka waxtar u ah oo shaqooyin gooniya u qabta iyo kuwa computerka isaga jira culays mooyaane aan wax kale u soo kordhinayn. Faylashaas qaarkood kuwa aan hadda muuqaalka ku sharxayo waxaa kamid ah faylasha la yiraahdo temporary fileska oo ah faylal computerka marka ka dambeeya ku kalifa in computerkaagu uu noqdo mid aad u gaabiya. Faylashaas computerku faylashan kaga badan yahay macnaheedu waxay tahay xagga culayskana uu kaga badan yahay. Qaarkood waxaa dhici karta in faylasha noocan ah ee computerkaaga ka dhigaya mid gaabiya ay noqdaan kuwa tiro yar halka computerada aadka u culusna ay ka dhigan tahay in faylasha computerka ku jira ee la yiraahdo temporary ay yihiin kuwa aad u fara badan. Waxaan ku ogaanaynaa farsamada lagu ogaan karo faylasha tiradooda iyo meesha ay computerka kaga jiraan iyo sidoo kale sida xal looga gaari karo aynu wada socono. Iminka waxaan joogaa shaashada computerka waxaan rabaa marka laba badhan oo keyboardkayga ka mid ah ayaan isla qabanayaa si shortcut ah. Sidoo kale waan raadin karaa laakiin shortcutkaas ayaan idinku sharaxayaa. Waan bilaabaynaa marka. Haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar, Facebook page-keena follow dheh. Marka talaabada koowaad waxay tahay inaad isla qabato labada badhan ee ah Windows iyo R. Marka koowaad adiga oo haya badhanka Windows ayaad hal mar waxaad taabanaysaa xarafka R. Kadib waxaad qoraysaa marka shaashadan hoose ee run ah ay ku soo baxdo percentage calaamadda boqolkiiba temp oo aynu soo gaabinayno temporary TEMP for pen kadib waxaad ku soo xiraysaa another percentage astaan kale ama sumad kale oo ah sumadda boqolaha. Intaa markaad qorto halkan waxaa ku taala okay waad siin kartaa. Sidoo kale badhanka keyboardkaaga ee la yiraahdo enterka waad siin kartaa. Anigu okay ayaan ku dhufanayaa kadib daaqadda uu geeyo ayaan eegayaa. Waxaad aragtaan in ay halkan ku jiraan faylal aad u fara badan oo temp ah ama temporary ah. Faylashan tiradooda waxaad ka eegi kartaa qaybta hoose ee computerkaaga. Hadda sidoo kale halkan falaadha haddaan ku soo yaro durkiyo idin soo dhaweeyo waxa ay ku jira 1352 shay oo computerkayga wax shaqo ah aan u hayn culaysna ku ah. meesha kaga jiraan haddaad doonaysidna waa halkan sare addresska ayaad eegaysaa pathka oo ah userka Ibro Osman ay ku qoran tahay ayaa waxay kaga sii jiraan folder la yiraahdo app data localka kadibna temp ayaa ku sii jira. Ka faylashan oo dhan computerka waxaa loo baahan yahay hadda 1352 markay computerka ku jirto xad dhaaf weeye. Computerada qaar 300 200 bay noqon karaan marka culays computerka indhoweedba waa ka dareemayay laakiin waxaan la sugayay insha Allah inaan 10 aan ardayda uga reebo. Intan oo dhan markaad haysid aad aragtid inay computerka ay xad dhaaf yihiin waxa kugu jira tiradoodana ay badan yihiin folderadan culays ku keenaya waxaa leedahay dhammaantood iga delete. Sidee baan dhammaantood u deleteyaa? Shortcutka ayaan waxaan taabanaynaa keyboardkeena labada badhan ee ah control iyo A. Marka control anigoo haya ayaan mar waxaan taabanayaa xarafka A ama A. Waan arkay iminka inay ii wada calaamadsadeen oo dhammaantood waxaan isticmaalaa shortcutka select all oo ah dhammaantood wada dooro. Faylashii aanan u baahnayn markay ii wada dooran yihiin mid ka mid ah ayaan dul imanaya waxaan leeyahay kadib right click ayaan leeyahay waxaan ku dhufan karaa badhanka delete. Sidoo kale iyaga oo ii dooran markaan dhaho control A keyboardkayga badhanka delete la yiraahdo ee igu yaala oo ah tirtir ayaan ku dhufan karaa. Marka right click ayaan leeyahay waxaan leeyahay delete. Sidaas ayuu marka dhammaan faylashan GB-goodana aad arki kartaan ayuu ku deleteyaa. Waxaan leeyahay dhammaantood tigta saar wada dhaafi oo computerkayga saar. Iminka waad aragtaan waa 1 GB iyo dheeraa size far badan bay iga haysteen. Computerka marka faylashan aad ka saartid waxaa hubanti ah oo aan shaki ku jirin inuu noqon doono mid sidii hore ka dhaqso badan maadaama aad ka saartay faylal aad u fara badan kuwaas oo computerkaaga u keenayay culays. Marka aad deleted faylasha oo dhan computerkaaga waxaa hubanti ah oo aan shaki ku jirin inuu noqon doono mid sidii hore ka dhaqso badan shaqadiisana u qabta si habsami ku jirto oo dhaqso ah. Muuqaalkan kooban halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Muuqaalkan haddii aad ka heshay like saar wixii faalla iyo fikra qaybta hoose commentiga noo reeb. Mar kale haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh. Muuqaalka xiga inta ku kulmi doono waa aniga oo Ibrahim Cismaan oo idinkaga tagaya
asalaamu allaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.